waa iska been waxaas way qaan laakiin mar hadii hooy iyo maxay ahayd meeshii imaanto in guri lagu soo wadhooyo oo reer labada dhaqdo dumarka markaas wada doosan ayay qaadaan halka rag u maleysay inay shaqaale soo guursadeen oo u maleynaa inay meeshan shaqaale ay tahay inay dhar ku dhaqdo oo maxay cuntada u karis inay u keensadeen camal ay ka dhigaan banaankaas ay aadayaan meelahooda 4 saac weyn. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان بولالة ميديا ان سيداد هورين اوغا براتين با waxaad mar walba aad nagala socoteen Bulaale Media anagoo markaas idin soo gudbinayno maaweelo iyo madadaalo iyo murti iyo wixii markaas kolba aanu idin soo diyaarino caawa barnaamijkani uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore ee aanu idin soo gudbin jirnay caawa waxaa marti iiga barnaamijka oo aan rabnaa inaan isla dadahayno anagoo waliba ka wada hadli doona barnaamijka yaa balanta ka baxo ragga iyo dumarka waxaa barnaamijka caawa marti iiga ah walaashay Runay oo ayadana kamid ah YouTube-leyda reer Nairobi Runay official waad booqan kartaan si aad u barataan wax ayadana idin xiiso geliya wala socotaan inta kadib waxaan rabaa barnaamijkan inaan idin sheegno inuu ku saabsan yahay caawa barnaamijkeena uu yahay mowduuciisa ragga iyo dumarka keeba balanta ka baxdo ma ragga balanta ka baxo mise dumarka balanta ka baxo anigu waxaan matalayaa oo aan u doodayaa ragga waxaana eeda saaraya dumarka walaashay Runayna waxay eeda saaraysaa ragga ayadoo difaacaysa dumarka barnaamijka yaa caawa idin haynaa waa mid aad u xiiso badan oo idin xiiso gelin doona sida aan filayo insha Allah ta'ala waxaan ku soo dhaweynayaa walaashay Runay si ay uga qayb qaadato barnaamijkan quruxda badan ee aan caawa ka wada hadlayno ani iyo ayada Runay soo dhawo waan dhawahay walaalkayga Fawzi waan salaamayaa dhammaan inta ku xiran Bulaale Media salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawada barnaamijyada xiiso badan dood aan caadi ahayn inay wadnaa insha Allah nin walba fikirkiisa sidii aan ila tahay fikirkayga ayaa ka dhiban doona Fawzina sidoo kale idinkana fikirkiina ayaa commentiga inoo soo qori kartiin ani ahaanteeda waxa isleeyahay balanta badana waxa ka baxaan ragga sababtoo ah mar walba marka ragga maxay in badan ay dumarka sugayaan ayaa wax laga yaabaa markuu inuu naag kale iska raaco isaga qof uu balan ka qaado qoftii ay sugayso 4 sano 5 sano 6 sano 8 sano dad loo xayirnaa kadibna waxay iska raacayaan dumar kale markay xoolo helaan ama email kale ay taadaan iyagoo aaminsanba qoftaas hada ka tagtay maxay ahayd kalsoonidii iyo maxay sidii hore ma jirto camal ma aamini kartid qofka ka maqneed soo qofkaana kugu dhow ama la joogta waqtigaaga iyo kaalo min camal qof kale inay meesha ka qabsadaan ayaa dhacay qoftina ay sugto intaas oo sano ka baran soo waxa sulgooy lama dhigi karo ان هجاك qof walba horta fikrad buu leeyahay adiga waxaad ka hadashay fikradaada iyo wixii adiga aad aaminsan tahay waxyaabo badan aan goob joog soo ahaa aan soo arkay rag badan oo dumarka xumeeyay sagaar jir la kufsanaya arkaysa maxay ahayd kuwa qaar ilmaha loogu tagay xitaa hadii la kala tago inkastoo calaf u yahay kala tagitaanka ay saneen wax xun hadana rag waxay aaminsan yihiin hadii qoftaas ka tagaanba qof la inay rabaan aysan maxay ahayd bil siinaynin qofta ilmihi ku ogaanaynin ay aaminsan yihiin badana hore waxa loo yiri nin shan cunug oo dhalo wuxuu ka jecel shantiis farood oo dhuuqo marka nimanka badana waxay aaminsan yihiin hadii sameesha hunguri iyo naag bay u iimaanaynin inay biilka dadka ku dhibaan ama ay dhahan cuniga ka qaadanayna hooyo waa iska dareemi kartaa markii la cuniga ka qaadanaa inay dhahdo inta cunigriga qaadan lahaa ana barbaraha istaagana ilmahay u rafaada oo korsanaa bilin waxa laga yaabaa ilmahaas inay anfacaan asaga xoog lahaa oo maal ilaahay si ilmihiisa biilin oo waxba u qabanin inay biri ilmahaas anfacaan marka ragga aad ay u badan tahay eedeedo ma la soo koobi karo hadaan dhahna waa soo koobeyna caawaaga bariyaa ku dhah ان هجاك ان Runay aad baad u mahadsan tahay ان qof walbana horta umada ilaahay isku wada aragti ma ahan ama isku wada fikrad ma ahan صح ان qof walba fikrad gooni uu leeyahay wax buu aaminsan yahay aniga Fawzi ahaan fikrada aad aaminsan tahay mid ka duwan baan aaminsanahay waayo ان hadii hadda tusaale ahaan aan ku soo qaado ان waxa jiray nin dhalinyarta kamid ah saaxiibanahay waliba asxaabteedu ku iigu dhadhow kamid ah aba igu qabsada gadaal duu rabay
qiso ku dhacdaan kaaga sheekeynaya in macnaha dumarka ay yihiin kuwa laqdabada iyo macnaha dabamarka badan way badan yihiin taas kaa dhaxgala Fawzi adoo dumarka way banaanka waa iska been waxaas way yaqaan laakiin mar hadii hooy iyo maxay ahayd meesha imaanto in guri lagu soo wadhooyo oo reer labada dhaqdo dumarka markaas wada doosan ayay qaadaan halka rag u maleysay inay shaqaale soo guursadeen oo u maleynaa inay meeshan shaqaale ay tahay inay dhar ku dhaqdo oo maxay cuntada u karis inay u keensadeen camal ay ka dhigaan banaankaas ay aadayaan meelahooda 4 saac weynima la imaana ama 6 saac qaar 8 saac weynima socdo maxaa u imaaday xilligan waxa u socotaa ma wala dhihi karo waxay u haystaan inaa shaqaale tahay guriga joogtid ka warantaa waa tahay runay aan kaaga jawaabo ama aan ku fahansiiyo hadalka wadiga dhex gashay jaanis isi inaan hadlo aniga kaa macnaha si fudud ku fahansiinayo waxaa jirto jacayl markii la dhaana horta dumarka unbaa ballanta ka baxo guri dumistiisa markii la dhaana dumarka unbaa dumiyo sababtan kuu sheegay haddaba dhegeyso adigoo nin uu ku qabo oo guri aada u joogto intuu iska soo galo guriga kuma dhahayo waan ku furi wax walba sabab bay leeyihiin ma fahamte ninka marka uu naagta furayo sabab buu ku furayaa marka uu soo guursanayana sabab buu kusoo guursadaa sababtii aan kugu soo guursaday wejigii iyo wanaagii iyo heshiiskii aan aniga adig ku midownay haddii aad ka baxdo oo wax ka baxsan aan kugu arko ma cid baad diidaysa inaan ku furayo maya ifur way dhahaan dumarka laakiin maxay u dhahaan ifur micnaheeda waa i dhaqo i wanaaji i toosi ereyga ifur ma ahan ifur haddii lagu dhaho kuleetigu qabto inaad sii daysa dalqadaha ma aaminsani taas ifurta horta dadka isku dabeecad ma ahan naag baa waxaa laga yaabaa inay macnaha intii ayadoo degan hadda kasoo qaad adi ahaan macnaha ani adiga kuma qabo kumana furay laakiin qaaya ahaan kasoo qaad ani adaa isqabno ninay naagtiisaana gurigaan degannahay reer baan nahay alxamdulilah inagoo balaayana jirin saaka kaa baxay shaqo kuu aaday oo kuu maqan baa waxaa laga yaabaa inay kuu imaato mid ka mid ah asxaabtaada adiga saaxiibka aad ka dhigato balse cadowgaaga koobaad ah waxaa laga yaabaa in ay kuu sawirto adduun adi aadan arkaynin oo kale oo waxba ka jiran sal iyo raali lahayn ma fahamte waxaa macquula in ay macnaha kaa dhaadhiciso in ninkaagi shaqada kuu aaday ee daacadda kuu ahaa inuu macnaha naag kale suuqa uu ku qabo oo ku dhahdo maalinkii naag buu qaba ninkaagi ayadan waxba ka jirin oo rabta ninkaas inay adiga ku dhaafiso ka xumaatay macnaha nolosha adi iyo isaga idin dhexayso waxaa laga yaabaa inay kuu daarto filin ah ninkan macnaha naag kaluu wuxuu aruursanaya ama naag kaluu guursanaya adigii ma hubsanaysid waxaa weeye hoogayo baaya intaad dhahdo unbaad meel allaaliya meeshii markaa kuugu dhow eed wax ka bilaabi karta unbaad isdhihi ka bilow ninkii maadan la tashanin waxba maadan weydiinin buuq iyo dagaal hoosaad ku bilowday ilaan naagta markay maanta wax kuu sheegto isla maanta ninka uguma qabsan karta laakiin xoogaa balaad baa kugeli cuqdad ninkii sidii hore uma ahaanaysid waqti bay qaadanaysaa waa idinkii oo heshiisa haddana hoosta col ka wadatiin oo macnaha cuqdad iyo colaad dee naag xalay aan wanaag ku ogaa oo maanta la iiga dambeeyey sidii xalay aan oga tegay ma ahaanayso waxun baa iska bedeli iyadoo taasi jirto yaa waxaa laga yaabaa filimkii inuu macnaha aad u adkeysan weydo kusoo celcelisay habeenkii markaa seexato oo kale stress uu kugu noqo buuq uu kugu noqo nagba ninkii macnaha in dacadta uu kaaga qaraaraado u noqdo oo aad dhahdo iga fur ninkan ilaawe maba iqabaayaba aad soo istaagto ma xumo taas way dhacdaa okay sug shakadan ku wadaa weli waxaad go-aansatay ninkaa inaad kala tagtaan maadaama uu ku khiyaamay oo uu naag kale ama uu qabo ama uu guursan rabo lagugu dhahay adigu waxba maadan hubsanin meeshii ugu dambeysa istaagtay nag waxaa waa ilaa inaad furta taagan tahay haddaad soo istaagtay ilaa inaad furta taagan tahay oo tolkaaga iyo qaraabadaadi aad u yeerto dhahda maya ninkan imaba maraba oo tolkii iyo qaraabadii reerihii la wada imaado oo la dhaho gabadhan fur maxaa diidaya inuu ku furayo wuu ku furay markuu ku furay ninkaa khaladka ma asagaa iskale mise adaa iskale anaa iskale dee saasoo miran weye aniga aalahaado ma xumo haddana asagii ayaa laga raba asaga ayaa nin rag asaga si walba inuu wax ku fahansiiyo isku day wuu ku kari waaye naag wax kale u caddaatay waxaa layidhi ruux meel u cadde ruux meel laga madow baa layidhi marka adigii waxaa ninka uu sheegayaba kuuma muuqataba naagtii warkay kugu qufishay baa wixii haddee been yihiin horta ma soconayso mogta hadduu asagii ka dhaadhiciyo uu dhaho qofkaana seexayskiisa tahay uu u sheego uu maalmo badan ka dhaadhiciyo uu maxay ahayde mid aamini ma tahay horta dumarka maanta jooga mid wax loo sheego war aaminaysa ma tihiin
ma aaminaysaan. hal iyo laba oo fudud way jiraan oo markaas wixii adigana hal iyo laba fiican way jiraan laakiin 99% waxa waaye waa safe labood waxa ma qaataan. inta badan kulligooda lama wada dhihi karo sidaa. ka soo qaad jacaylka oo kale marka hadda jacayl la jilayo oo kale waa aragtay dhalinyaro tay magaalada joogtay intaas oo sanad jacayl aad jilaysay tusaale ahaan wiil iyo gabar markay wada sheekaysaneen ayagoo heshiis ku heshiiyay hadda waxaan xasuustaa wiil bishii hadda lasoo dhaafay ku waday inuu aroos galo oo ilaahay amarkii wax walba diyaarsaday oo isku diyaariyay inuu gabadha guursado reerkoodii wax oo dhan ay wada ogaayeen markuu shukaansanay wiilka waxba looma sheegaynin waxba jiray kan baa jiray waxba lama dhehaynin ayar mar allaali markii tolki iyo qaraabadii reerkii gabadhii la dhahay loo diro yaa xal soo sajiga gabadhana reer baan siisanay ama nin baan siinay marka waalidka ka imaad Soomaanta ayada ku dhaasay waalid kala ma ayada waxay dhahday intay wacday waxay dhahday inuu arooskaas ma dhici karo sababtoo ah ma dibadaha iyo meelahaas loo sheegay leen qabo oo awal ogeyn markii waa la soo doonay hiblaaye maqashay la maqlay baa ninka la xaga ilaahay markii wax siiyay yaa soo diyaariyay markii miskiinki meeshan ila joogay saaxiibaha ahayn xaaladda ku cakanata oo ku xumaatay balantu way ka baxday marka balantu ma dumarka markaa ka baxay mise ragga ka baxay way dhacdaan ma yaa ka baxay horta ma dumarka ka baxay waqtiga hadda su'aasha hadalka hadda ku way gabadha ka baxday iyadoo raadinaysa ay hay laba jeer balantu ma ka baxdeen maxaa isku sheegaynaa marka saana mar walba balanta oo ka baxdaan hadana ragga eeda saaraysa hal iyo laba ma la dhihi karaa laakiin 90 nimanka sameeyaan ka badan oo la faagfaagin badan dumarka ceebaha ragga ma faagfaagaan way dhaleen wayna la dhashteen waa qarqarina intaas waxaan leenahay wiilishiin waa one day way toosi doonaan joojiye ma insha Allah taala wixii khaldan ilaahay soo toosiyo haddii dumarka yihiin dumarka dib isu qabta haddii ragga aanu nahayna waxaan alla ka rajeenaynaa inuu daba qabto oo aanu fahanno dumarkanaga intaasi waxaa noogu dhan barnaamijkeeni waxaan rabnaa inaad akhyaarta sharafta leh ee Bulaale Media ku xiran inaad noo soo kala garqaadaan aniga iyo walaashay Roonay wixina kala qabsaday waad maqlayseen waad arkaysan jawaabtu waa xaqiina idinkoo macnaha dumar ahaan u hadlaynin ragona rag ahaan u hadlaynin sida cadaalad ah ee qof walba maskaxdiisa ku jira ama inta cilmiga uu leeyahay cabiritaan markaad samaysaan waxaan idinka codsanaynaa commentiga inaad nagula soo wadaagtaan fikradan iyo qof walba soo booqatiin channelkayga Roonay official gabadhan Roonay official soo booqda waa gabar walaashiina waxa weeye garab idinka baahan tahay subscribe like share comment waxa dhan wada sameeya hadaan una team Bulaale waxaan idinka codsanaynaa inaad soo dhaweysaan gabadhan waa anagoo mar kale idin leh sidaas iyo nabadgelyo barnaamijka xiiso badan insha Allah taala iyo next